Assalaamu calaykum. Waa Dr. Mawlid Kudar oo dhammaantiin bay idin salaamaya. Halkiina waxaan nooga sii qaadi doonaa casharadeenii barashada cilmi nafsiga iyo xanuunada dhimirka. Laakiin hadda waxaan weli ku jirnaa barashada qiimeynta qofka laftiisa, hadalkiisa, fikirkiisa, araggiisa iyo waxyaabaha xiriira mental status examination. Marka caawa waxaan isu gudbinayaa qaybtan oo u gaar ah speech, hadalka. Afka ruushkana la yidhaahdo rastroyisvrage, khalkhalka ku yimaada hadalka ama waxyaabaha lagu garan karo qofka hadalkiisu caadiga yahay iyo qofka hadalkiisa wax ka sii yihiin lehna hadalkaasi lehna calaamado xanuun. badanaa waxaan idinku soo gudbiyaa waa af ingiriisi, laakiin anigu waxaan ku bartay waa af ruush, walow mar walba ingiriisna aanay ka badhnayn, laakiin luuqadaas ay la fahmaysaan. iyadana maaragtay wixii aan maaragtay erayadan isticmaalay doono aan ku sheegi doonaa afka ingiriisiga anigoo markaa ku turjumaya af Soomaali. walow anigu aan jecelayba inaynu afkeena hooyo u turjumno cilmi kasta, afkeena hooyo wax ku barano oo dalkeena wax lagaga barto. halka hadda intaa ku dhaafo aan hore uga soconno speechka muxuu yahay, maxaase laga eegaya. hadalka waxaa laga eegayaa aan idhaahda hadalka waxaa laga eegayaa inuu yahay waxa la yidhahdo maaragtay relevant, inuu yahay oo ah wax ku habboon oo xilligiisii kala dhacaya, inuu hadalkaasi qofku yahay inuu yahay mid maaragtay coherent oo ah wax suurtagal ah inuu yahay, oo hadalkaa qofkaasi ku hadlaya hadal suurtagala oo macno sameynaya uu yahay. saddexaadna waxa weeyaan inuu maaragtay fluent yahay oo uu yahay mid sidii loo baahnaa maaragtay qofku u yidhi ama wixii uu doonayay baan idhaahday uu u sheegay sidii ay ahayd ama laga sugay qof caadi ah. haddii saa u sheegi waanada waxay noqonaysaa maaragtay cilad xagga hadalka ah. haddaba hadalku wuxuu noqdaa mid caadiya oo qofku caadi u hadlay saamkaan la hadlayo kale oo qofku isagu kantaroolayo. midna waa mid la yidhahdo maaragtay pressured weeye, markaa midna waa regular, midna waa pressured speech. pressuredka waxa weeye mid ku socda xawli, ku socda qofku uu daldalmayo, oo xataa haddii isagoo hadlaya qof kale israaxdo wax weydii ama qofkii su-aasha weydiiyey aanu ka dhexgeli karin. oo qofkaas waxbuu ka sheekeynayaa, sheekeyn kusoo qaad qofka telefoon kula hadlaysaa. dadka qaar baa jira lafteeda aniga qaar ila soo hadla marka qaarka aan wada hadlayno, deetana dadka qaar adaa hadlaya, dadka qaarna iyagaaba maanta o dhan hadday hadlayaan hadal ereyga kaa qaadan wax laga yaaba inay kuba siinba waayaanba fursad keliya adigu xataa wax ku tiraahdo. markaa dadkaas oo kale waa pressured speech waxay ku hadlayaan. dadkan maaragtay waxaana badanaa caan ku ah waxaa la yidhahdo maaragtay manic state-ka uu leeyahay bipolar disorderku ayaa ku caana, oo qofkiibaa hadlaya maanta o dhan wuxuu ka hadlayaa, markaad su-aal weydiiso ayuu hadalka isdaba dhigayaa si deg dega, si kastood xataa uga dhex gasho waad su-aashaada sida ku istiraada ku celi, ma kuu jeedaba, mana ka jari kartid ilaa uu dhamaysto isagu. marka waa pressured speech wey. waxaana san sheegay dee maaragtay ku caana manic state-ka uu leeyahay bipolar disorder iyo anxiety oo ah werwerka, qof markuu werwersan yahay qofku waxaad arkaysaa daldalmaya waxaana dhacay xaggan ka dhacday waxaana maba adiga kuma dhagaysanaya, isagunbaa daldalmaya. sidoo kale waxaa jirta mid isagu ah laconic la yidhahdo. laconic waxa weeyaan qofkii oo su-aal baad weydiinaysaa halkii uu faahfaahin ka bixin lahaa
ayuu hal jawaab kugu soo koobiya haa maya way dhacdaa ma u malaynayo saasoo kale erayo kooban buu gabis ku joogaabaya marka qofkaas waxaa la waa qof istifaaciyo kale ama isla yaan lagaa helin sir oo waxaad ku hadlayso ama dhakhtarku yuu wax kasoo dhex saarin usoo koob buu isleeyahay baashi laakiin waxaa laga yaaba usoo koob inay kusoo baxdo meesha ay kasoo baxdo wala koonigu qofkan hadalkiisu yahay oo marka maxay brief responses ka uu sameynaya qofku ee jawaabaha ka kooban waan aaminsan qofkii ayaa la yiraahdaa laconic marka waa hadal la'aan hadal yar baa meesha ku jira oo qofka hadal badan ma oranayo waan gartay waxa jirteeduna hadalku ma nidaamsan yahay mise ma nidaamsana organized or disorganized oo qofkii wixii uu hadda u hadlayo inuu daba socod yeesho oo midba mid ku xigo waxa uu leeyahay qofka hadalkiisu ay iyadana tahay marka sidoo kale waxa jirta inuu maartay qofku disorganized wax lagu gartaa kale inuu qofku ku hadlayo waxaan macquul ahayn oo kale inuu ku hadlayo oo aan maskaxda geli karin hadduu ku hadlo qofku isagoo disorganized marka iyadana waxaa lagu gartaa waxaa la yiraahdaa maaragtay waalida sidoo kale asaasaqa dementia qofka hadday ku dhacdo waxay noqonaysaa qofkii weynaa waa kan waxba ku dhurmayaa waxaan islahayn buu ku hadlaya kulli qof asaasaqi qof arkay uu garanaya sidoo hadlo sidoo kale qofka maaragtay schizophrenia haysa waalida haysan isaguna wax aan macquul ahayn ama aan day suurtagal ahayn in kala duudhado waxaan madaxweyne ka hay jasiirad ku taala waqooyiga America aan wax noocaas oo kale haduu kula ku hadlo waxay noqonaysaa maaragtay hadalkiisii mid aan organized ahayn ama ay ku jirto waxyaabo aan macquul ahayn waan gartay sidoo kale dadka waxa iyaguna ku hadla haduu qofku qaylo kale maaragtay markuu murqaan dhaafo kale kulli inuu qaadkina qaadkan soo lagu bixin karaya marka taasoo kale iyaguna way iman kartaa haddaan ka socono waxaa jirta hadalka waxa la yidhahdaa maaragtay caprolalia iyo ecolalia iyaguna ku darayna maxay yihiin caprolalia waxa weeyaan qofkii hadalkiisa ayaa waxa ku jira wax aan hadal ahayn balse ka kooban ku darayo marka badana iyadu waxay calaamad u tahay waxa la yiraahdo Tourette syndrome waxa la yiraahdo oo qofkaasi Tourette syndrome ku haya waxba ku daraa isagoo hadlaya ereyga oo adigu hadlay ku leeyahay wax erayo saasoo kale aba soo gelaya waxaa ku jirto kale iyagu ay sameeyaan dadka xanuunkaas iyagu haya erayo gaaraba qof waxbay kaga dhigtaa qofay shit kaga dhigaysaa suu joogo shit marka qofa wax maaragtay cayo kale kaga dhigaysaa aduna faraha dul ka tusaya cayda doonadaas kulli marka iyaga hadalkooda waa caprolalia marka waxba ku jira erayo waa ku jiraya halkaas marka la yiraahdo marka qofka soo hadlo markii uu wad garanaysaa waxyaabaha ku jiro ku darayo isagoo iskama keenay qofkan isagoo hadalkiisa caadi wata qofkaas ay syndrome-kan Tourette la yiraahdo haya marka taasna waxay noqonaysaa wax la yiraahdo caprolalia ecolalia maxay tahay ecolalia waxa weeyaan qofkii wada weydiinaysaa oo qofkaasi waxa uu ku oranaya wixii aad tiri iska waran baad ku oranaysaa iska waran ku leeyahay maxaa kan lagu keenay isagoo waliba aan isagu soo eegin marka inta badan taasi dhacda oo dhinacaas kale uu eegaya iska waran baad oranaysaa iska waran adigu kuma soo eegayo waayo waxay dadkaasi ka cararaan ay contactiga in maaragtay indhaha ma siiyaan saadaradeed waxa ku caana ecolaliada autismka dadka autismku hayo xanuunka la yiraahdo ayaa ku caana oo wixii aad tiri bay ka daba oranayaan
taasna waa taas. sidoo kale iyaduna waxaa jirta waxa la yidhahdo maaragtay neologism baa jirta oo hadalka qof ku samaysanaya erey aan jirin. iyaduna waxay ku caana waalidoo kale. qofkii laba erey adigu waxaan afka soomaaliya ku jiro kale af soomaaliya wada naqaanaa, deetana waxbuu oranayaa qofkaasi, deeta waxaasuu kaaga dhigaya inuu macno leeyahay. waxa danto waxaas hada isu keenay, laba erey baa laga isu keenay. gujo intuu iska yidhaahdo ama ama guwa waxbuu oranayaa qofkii, deetana waa maxay baad ku oranaysa, markaasuu ku fasiraya. hadda kuma jirto luqada ereygaas. marka saasaa markaa iyadana loo yidhaahdaa maaragtay neologism la yidhaahda. marka caawa halkaasaan kusoo koobayaa speechkii iyo sida loo qiimeeyo hadalka qofka, oo hadalkaas uu leeyahay qofka aad maaragtay wareysanaysaa. hadee dhakhtarku wareysanaya, adigu waxaan ugu talagalay casharadan inay dadka caadi ka faa'iidaystaan oo iyaga laftoodu garan karaan. markaan sanoo kale ay qof u dhagaysto kale waxaanan sheegayo inuu qofkiisa ehelkiisa hataa ama qofu yaqaanaha hataa hadduu arko qof hadalkiisu isbedelay, inuu garan karayo inay si maaragtay nafsiyan ah loo hayo, oo markaa maaragtay isaga laftiisu wax kasoo saari kara meesha. oo qof kasta waxaan jeclaa anigu inaga mida inuu yaqaano ugu yaraan, weliba hadda weli maynaan gelin maaragtay waxyaabihii ugu muhiimsanaa, laakiin mar walba xanuunada iyo marka xataa aan galo waxaan uga socdaa un inaan halkan kusoo gudbiyo maadadan la yidhahdo barashada nafta iyo xanuunada dhimirka. waa in ay dadku bartaan qofkan xaggay tahay in la geeyo. intaas muhiimadda ugu weyn anigu rabo. dadka dee caafimaadka baranaya waxaas waa halkeeda, laakiin dadka bulshada caadiga waxaan u rabo inay ka faa'iidaan waxa weeye inay garan karaan ugu yaraan qofka calaamadahan leh dhakhtarkee baa loo geeya. waa dadkan dhibaatada ugu weyn haysato waa intaas, inaanay garanayn qofki waxay markaas cilaaj iyo meelo kale lagula waalanaya. qofkii aan waxba looga tarayne lacagtun laga dhamaynaya ama laga haynaya, waa laga haynaya. dadba lacagun lagaga qaata si looga hayo qofka. marka xanuunada soo socda iyo iyaga dhimirka qayb baan ka dhigay, iyo nafsiga iyo nafsi waxay ka sameeyeen psychologiga iyo psychiatriga. qaybta hore psychiatriga waa iska nafsi, laakiin wixii dambe ay noqonaysaa xanuunada iyo daweyntooda. marka aad baan idin salaamaya dhammaantiinba. waxaan idin rajeynayaa inaad ka faa'iideen wuxuun inaad ka faa'iidaan casharadaas. waxaanan idin leeyahay kusoo gabagabeynayaa barta cilmiga dhammaanba bilaash weeye, ogaada beesa kama qaadaye ila baraaruji dadkeena. asalaamu calaykum.